afartanaad firqadiisa dhowr iyo afartanaad waxay sheegaysaa maamul ahaanshaha ama maamul noqoshada. waxaa horta ku bankinkooda waxa weeyaan in maamul buuxa loo aqoonsado deegaan waa in 2 gobol iyo wixii ka badan ma 2 gobol iyo badh weeyaan waa kow. boinka labaad waxa weeyaan in magaranaysaa afti loo qaado oo magaranaysaa la horgeeyo xubnaha baarlamaanka iyo magaranaysaa golaha wasiirada labada ansixiyaan دكتور مدحوينين أي كوسا بحلا باب القبلات ورحمة الله وبركاته سورة استحبال المقالك سيشهر قدام تكونوا سمرت عطيتوا عن كاوسنا تاخذ المقالك نميل كارسو أد ما استحبالكم هندق عندك تهدوا قبل عرن قفل لهم هندق عين دوني استحبال thank you so much markii inta laga yimaado markii inta ka nimaadno maanta ama wax leegista ku tahay waxaan doonayaa bal arrin yaro ku saabsan arrintii xaladii ka dhawaajiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ee ku saabsanada qoonsiga ama magaranaysaa maamul goboleedka rasmiga ah waan u magacaabay dadka deegaanada Sool iyo soo kala gobolka Bohol iyo soo kala qayb ka mid ah gobolka Sanaag inaan saaxiib adduun istaago ka hadlayo soo dhawaada muuqaalka meel gaarsiiya markii hore soo martaa hadii tahana waxaan san xariis la kaaga codsanay daawada muuqaalkan ku yaala falanqayntan way ka madax banaan tahay ku xumeyn way ka madax banaan tahay magaranaysaa inay reer yaxyaba cadifada midna shaqo kuma leh YouTube kala daawanaysa awil fashiyan iyo barteena Facebook Cabdisaaq Maxamed barteena TikTok Cabdisaaq Maxamed waxa meel ka madax banaan qabyaalada iyo reeraha iyo waxyaabo inkaas waxaan kaga hadlaa arrimaha xasaasiga ah maalmaha taagan siyaasadda iyo arrimaha bulshada warwa faantay Soomaa hadaba saaxiibayaal habeenimada xalatahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waxa uu ku dhawaaqay maamul oo yiri waxaan maamul ahaan u aqoonsaday maamulka SSC Khaatmo Washington State habeenimada xalatahay xaflad ballaaran baa dhacday idinka sheekeyn maayo ma doonayeen magaranaysaa dib ugu noqdo xafladaas ma doonayeen xafladda dib aan magaranaysaa haddana mar labaad aan idinku celiyo balse laakiin waxaan doonayaa inaan kaga hadlo sidee maamul ku yimaada sidee maamulse lagu noqon karaa dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Bohol ma noqon karaan magaranaysaa maamul ma noqon karaan way dastuurka ku meel gaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ama dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya maxaa uu ka qabaa in maamul la sameeyo so horta waxaan doonayaa dhowr meelood kala qaado hadalka ra'iisul wasaaraha inaan gooni u istaago maamul qoshada inaan gooni u istaago labada arrin horta ugu horreyntii afafka dhigan doonayna inaan dul istaago saaxiibayaal way boinka koowaad aan doonayna inaan dul istaago haween maamul dastuurku muxuu u yahay dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya qodobka tanaad firqadiisa dhowr iyo afartanaad waxay sheegaysaa maamul ahaanshaha ama maamul noqoshada waxaa horta ku bankinkooda waxa weeyaan in maamul buuxa loo aqoonsado deegaan waa in 2 gobol iyo wixii ka badan ma 2 gobol iyo badh weeyaan waa kow. boinka labaad waxa weeyaan in magaranaysaa afti loo qaado oo magaranaysaa la horgeeyo xubnaha baarlamaanka iyo magaranaysaa golaha wasiirada labada ansixiyaan dikreeto madaxweynaha ay ku soo baxdo maamul goboleed dikreeto madaxweynaha uu ku soo baxo in maamul goboleed goobta laga dhawaaqo way ama dikreeto ra'iisul wasaare lagu magacaabo hadaba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa xalada sheegay inay tahay maamul buuxa SSC loona dhaqmo sida maamulada kale Soomaaliya ay leedahay si loola dhaqmayso lamida in loola dhaqmo way shuruudo badan oo ka horeeya jira maamul buuxinta horta dadka deegaanka waa dad magaranaysaa kalsoonidooda iyo ahaanshahooda in maamulkan ay ka go'an tahay balse laakiin hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xalada wuxuu maamulka ama dadka deegaankaas u horseedaya inay helaan ilaahay dhaqaale ee dawladda sida inay helaan magaranaysaa waxyaabaha asaasiga ah ee dawladnimada sida wasaaradaha qayb ka mid ah ay helaan magaranaysaa waxyaabaha dawladdu ku maalgelinaysa inay qayb ka mid ah inay helaan ayaa ay noqonaysaa ma xalato hadalka ra'iisul wasaaraha laakiin ugu wadaagsoon in xeerka u yaalo Soomaaliya inuu yahay 4.5 afar beelood oo waaweyn iyo 0.5 soo raacay inuu yahay waxaan wadaagsoonhay in beelaha Hawiye ay laba maamul leeyihiin beelaha Daaradna ay laba maamul leeyihiin beelaha Digimel Fnay hal maamul leeyihiin iyadoo hadaba ay tahay su'aashan daawada doonayna adigana ku weydiiyo aniguna is weydiiyo cid ka soo siyaasadda iyo xilligan aan weydiiyana waxa weeyaan ma waxa soo kordhi kara maamul shanaad oo ka soo jeeda beelaha Daarad muu soo kordhi karaa horta jawaabta inoo taala aanu dhankayga horta waa maya oo xeerka inoo yaala waxa 4.5 afar beelood waaweyn iyo hal beel oo dhexe ama beelaha dhexe ee Digimel Fnay oo koonfur galbeed hadaba maamul shanaad u yimaado horta qaar ka mid ah beelaha Soomaaliya degan ayaa kursigooda ama loolankooda madaxweyne oo qaran geergelaya warba faanteen horta arrintan la kusanata ma qurux badan si kasta oo saaxiibayaal bal adigu maamul buuxa sidee ay ku dhameystirmi karaan bal adigu nala wadaag